بسم الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهو بركة وحنا مرحبا إن الكرم الصبح وقيمتي سيورنا ولبا عروة نصيبي عشان حرق كشرة مركي لفوري قيمتي سلاماتنا إلى ما حرق كشرة فرحة بيت هاي قرآن فرتين ودعينا وحنا لها إلهو بركة آمين 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 إلهو بركة آمين إلهو بركة آمين. طلبكي أنا تنقص غير بشان حفلة المشتركة هوتيل كيب تاون وما تكون قبل دونه إصلاح حرم تاسين. إن واحد مكورة تمانتين اللي هي والمسنتين مكا روح قبلها بالأسرع عادي جتي عيدها قبلها أو إلى آخر دونه حسن نور حسن خليل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. سبحان كريمك إن سير سنة بتلك واحد نور يسينين أو يقول ما هو نعذر عبد هادي حسين علمي ودقن ودكاسي سود أفريقيا مقالة كيب تاون. الرانتي واحد لوران كريا وحوين أو أيوك سوق دي مقالة بالعددي يو حق جناح سجبا والله فاهمتها هوتيل كيقاب كل بسمي يوم ملكيلها waxa inoo hayeen ku soo dhaweynaa mas'uulka hoteelka ninka mas'uulka ka imka oo isagu dhisay oo la yiraahdo Xaaji Ahmed Cabdilaahi Saajin maanta inaan xafladda qiimaha iyo qaayaha la isku nimaadno waxa weeye kibtoon magac cusub oo maanta aan furayna maaha kibtoonna cid walba way garanaysaa ballaarin lagu sameeyay oo qurahatay way waxa meesha aan maanta xafladdeena asbugu nimaadno kadib markaan aragnay baahida loo qabo lamaanaha oo marka hore ku yaraa kibtoonka qaybtiisa hore ayaa qaybtiisa dambe dhammaanteedba ka dhignay guriyihii qoysaska lamaanihi ay ku raaxaysanayeen iyagoo badkooda. For example waxa weeye halku kani ka ahaa dhul ahaan bad ahaan oo isleegiiba in yar buu ka yaryahay halku 9 qol ka ahaa kani 3 qol baa ka dhignay si raaxada booliisku u dhamaystiranto daaradii uu helo TV-gu uu helo meesha kale fadhiisan heliya meesha uu 9 kaas ka ahaa kana 3 baa ka dhignay. taasi waxaan ugu talagalnay baahi looga soo baxday markii kan aan furnay oo ku yaraayeen naqsinada lamaanuhu ayay looga soo baxeen baahidaasi aan furno dhammaantiina waxa ka wada dhignay isagoo ah hal dabaq buu leeyahay kan aan joogno ee hore haddana duusha markaa joogno uu sameeyahay nabiga الله وبركاته. محوها حفلة المانتا لوجو دا فريو متانها هوتيل كني. أما لوجو محوها لوجو دا فريو متانها هوتيل كني. وحا صاد محوها ودهان صاد بس قيم كشين وتكمل تنتي ومركه هراء مركه اللوات محوها هوتيل وصل الله شيء وحنا لنا هاي الله وبركاته. حويا محوها والدلال لأنك دلاله وقاله من الله وبركيه يا الود عيننا ورخل الكتاب وحوي ما بخطوه متقد شم مضنو دوحها قفكو بني آدم كيه وحوي إنه وحكو سوكر ليو إنه وحكر ليو أو نافع نقضه وامد ماشي طالويا ونكل داوودو خياي إنه وحكر ليو وواحد ماشي يالوي نفرع إنه محوها ودكيس أو مال قليو الفصل من قصة مايو أما بدها هجوجة أما بدها هجوجة يدنا وامد محوها لو بهيه ولما وح قرنا دايس براها عندي وحيسطا إن يبدل كمال قليان أو إن محوها سكترس برايفت سكترس أبوران أو الشقوين محوها دليرة أو أبوران وامدي قلنت هذا لا أنت كبعدي بورما فصح قاون وحنا نبدأ شغلنا عبد حسين علمي ودنا على الرؤية عن عبد بورما وقاطي مقعي
magaalada maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta badan leh ee lagu furayo hoteelka quruxda badan leh ee maanta aynu joogno intaa kadib waxaan odhan karnaa ganacsadahan da'da yar leh ee cabdi xuseen cilmi wuxuu yahay marka loo eego South Africa agency-ga inoo jooga taasi oo odhan karno diaspora ama dibadda ka yimaada ama tahriibaya inuu u yahay wakiil tiyo qofkaas tahay markuu ka taqaanay oo u dhashay ama Somaliland ama u dhashay gobolka Awdal iyo Saraal inuu la hadlo oo uu soo dhaweeyo oo wixii qofku u baahan yahay uu la qabto meel kasta oo waxaan ku raday qofkii ama office-ayo ama qofkii guursanayo ama qofkii dib ku dhacdo dhan walba marka waxaan leeyahay ganacsadahaas Allah u barakeeyo waxaan kaloo mataqaanaa hablaayaan ducayno Soomaalida South Africa guud ahaan taasoo ay dhibaatooyin badan ka jiraan salaadiinta haweenka shirka sida fiican loo soo abaabulay xafladan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam maanta waxa weeyaan hoteelka la furayaa haadan lagu daray waa hotel Cape Town weeyaan Allah barakeeyo waxa weeyaan dhalinyar soo shaqaysatay iyo soo saartay halkoogii kuma haysatay wadankii wax ka soo kuwa kalena waa inay ku daydaan oo ninkii soo shaqaysay gacantiisa soo galaan waa inay sida inanka ay ku daydaan oo wadankooda soo dhisaan wassalaamu calaykum maanta walaalahan halkan isugu keenay xafladda qiimaha badan leh ee horumarka dhammaan marsharafka halkan isugu timiday rag iyo dumarba waxaan ku salaamayaa marka hore salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waa si intii ay sheegeen intii nagu horeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha hudhalada mataanaha ee Cape Town ee maanta aan joogno midna dhowrka sano shaqaynay midna maanta la furayo xilkasnimada iyo horumarka uu ka sameeyey magaaladii uu dhashay kordhinta ku soo koriye bilicda kordhinta ku soo koriye shaqada iyo shaqaalaha ka shaqaynaya iyo hantida aad iyo aad baan cabdi haadiyo ku mahadnaqaynaa waxa weeye waa shaqo fiican weey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidaad ugu tabacday eed ugu dadaashay inay abaalcelinteediina aad ummadda aad u soo hoysay aad ka hesho hanti fiican iyo shaqo fiican oo nadiifa aad ka heshaan ilaahay ka rajaynaynaa hambalya baan ku leenahay aad iyo hambalyo cayladda iyo intiiba hambalyaan leenahay inta kale dadka gurba joogga meesha doonaan baha joogaane ee u dhashay gobollada galbeedka waxaan ku boorinaynaa inay sidan oo kale ama si ka cadcad ay wax u qabtaan oo horumarka magaaladooda iyo gobolladooda iyo magaalooyinkoodaba ay ku soo kordhiyaan ayaan aad iyo aad ugu boorinaynaa waxaan aad ugu boorinaynaa in sharaa'iga waxay isku tegidda caalamka ku horumaray qofka ganacsiga aan waxba yeelaynin shakhsi waxba aana ku yeelaynin lacagta la isku geynaayo runtii ee lagu samaynayo warshadaha iyo horumarka ee inta shirkad isku timaadaana waxay ka helayso ummadduna shaqo ay ka helayso dhulkuna horumar iyo wanaag ka helayo inaad qabataan aad iyo aad baan ugu boorinaynaa waxa weeye wax badan baad qabateen dad qurba joogtihiin hadday wadooyinka tahay hadday isbitaallada tahay iyo hadday tahay meelo badan tahay way muuqataa way caddahay laakiin wax ka maqan qaybtii maalgelinta iyo isku tegidda ayaad moodaa gobollada kale ee dalka inay naga horeeyaan sida warshadaha oo kale ayaad moodaa oo muddo lacag la isku geeyay sida warshadaha taydha biyaha magaranaysaa leerka hawlaha caynkaasa lacag yar meel isku keentaan asaasiin oo baarigaynaa waxaan leedahay allah barakeeyo assalaamu calaykum amiin imikana gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa waxaan kusoo dhaweynaynaa salaadiinta iyo dhaqanka dhalinyarada ganacsatada ayaa ciidanka asbuunta iyo dhammaanba marti sharafta kale ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta marka ugu horeysa farxad bay ii tahay
inaan Cape Town markii la furayay inaan anigu markii ugu horeysay xariga ka jara farxad bay tahay mar labaadna farxad bay tahay oo inaan qaybta lamaanaha aan munaasabadana goobjoog ka noqdo xariga ka jarina farxad labaad bay tahay farxad saddexaadna way tahay oo inanka magaca Boor Cabdihadi ee waliba Cabdi Boor ama ku magac dheer oo magaaladii aan xukumayay intaan joogay laba daba ku kordhiyayna farxad bay tahay inaan goobjoog u ahaa markaana farxad bay tahay oo waxa la inagu xaman jiray marka ama dad dibadda ka yimaadaan ee ay xaasaska iyo wada socdaan ee xagaaga ay reejibutuguna yimaadeen magaaladu buuxsanto de lama heli jirin hotel dadku galaan oo lamaanuhu galaan waqti aan joogay in la furo hotelkaana farxad bay tahay inkastoo suldaanku yar xansanayo wuxuu yiri adaa yar guur badan ma dadka hotelku daneeyay baad ayuu hoosta ka yar lahaa inta xasuusin waxaan leeyahay cid kasta oo yaani munaasab hawl noocan oo kala magaalada ka qabata waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa walaaga ay magaalada ku soo kordhisay inaan kana waxaan leenahay magacaagii waxa weeye waad buuxisay kii magaalada magaceeda aad ku qaadatay waad buuxisay kii ummadda aad maxay ahayd adeegii ay u baahnayd waad buuxisay oo hawlaalkii oo qaybo kala gedsan isku jira dadweynaha kale ee danaynaya ganacsiga ama inay wax qabsadaan ama dibad jooga ama qurba jooga waxaan ku waaninaynaa inay hawlo noocan oo kala ah ku horumariyaan magaalooyinkooda midna waxaan leeyahay qolooyinka dhismaha dhisaya wuxuu ku fiican tahay qofku markuu dhismo dhisanayo inuu ku talagalo parkingkii loogu talagalay in hotelka loo joogsado iyo dhulkii shirarka lagu qabanayay ama dadku ku kulmayeen inuu joogsado maalmo dhawitaan hoosta waxaa laga qodayo godob godka haddii wajahada hore laga qodo oo gawaaridiina ha soo joogsato la idhaa u dubayaatee markaa macquul noqon mayso waxa weeye markaa in waxa hawsha marka la qabanayo adoo hawl wanaagsan qabanaya wixii ku talagalkeeda ahaana in lagu dadaalo oo la iska kaashado oo qof walba hadduu hortiisa sameeyo ilaahay ha u barakeeyo allah ha u barakeeyo allah ha u barakeeyo dadkuna ha kaga daydaan hadday dibad joogaan iyo hadday dal joogaan annaguna waan u fudaydinaynaa kolley waxyaalaha annaguna ay looga baahan yihiin ama ganacsiga ama maxay ahaanay qofku markuu wax wanaagsan qabto inaanu taakulayno oo aanu wax la qabanno waa muhiim laakiin waxa weeye marka wax la qabanayo dee waxaan dadka ku waanin lahaa sidaa imanka inankaasi hawshii ka dhinayd hotelkii tii hore u dhisay tii dambana uu dhisay dee ha uga soo baxaan midho fiican ha uga soo baxaan waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinaynaa inanka waxaana leenahay allaha barakeeyo hotelka adna allaha ku barakeeyo waa halkii ninkii cilmiga allaha ku barakeeyo aloosha allaha ku barakeeyo lacagtana allaha ku barakeeyo lacagtana allaha caruurtana allaha ku oo hotelka cusub ee loogu talagalay labada qof ee lamaanaha maqsinadana aad arkaysid sidaad arkaysid maqsinkan oo kale